dadka waxaan halkan uga sheegayaa snaabkay ku jira marka la idin dhaahdo wadan aad ka imanasaan ee la idin ku yiraahdo alaaba la idin dhiibaya dad iyo ilaahay foojignaada ninba alaab ii soo dhiibanay reer Bristol jooga oo igu yiri beer kaba ii soo qaad laba beero kaba walaal ii soo qaad oo ibariyay waxa la ii soo dhiibay laba kabood oo lagu guray waxa la wixii jaad magaalada waka jaadkii magaalada joogo dhan ayaa kabihii la igu soo guray dhexdii baa laga saaray markaysaan gundis baa lagu wareejiyay waa nin xunaabi wasoo reer Bristol oo reer gadiida baa la yidho Bristol jooga abul fucking find you motherfucker yo adoonayna la xidho ana detailska gabarta ka sheegay dhiladii ku dhashay was maanta dhan buu lahaa kaba ii soo qaad waa anigii adiga ku dheh aan ku yimaado faleek kab kastaaba sidii u buuxdo aksay u buuxaan waka is ilaaliya dadka alaabta idin dhiibaya kareem haday idin dhiibana ka soo qaadina 10 haydii noqoto 10 wixii igu dhina kabaha yaan la kala furfurin bal kala waa disable yaa xidha Clarix ba ku yaala wadanka yaa xidha waxan dadka muxuu haystaa ma inay stupid yihiin faq baan ka siiyay fucking ka uraya kabiis assalaamu calaykum maanta xaga waxaan ka sheegayaa wax muujiso la igu dhacay airport kan joogo waan dhoofayay time man helin aan ku macneeyo inaan aanu ilmaadeer inaan nahay moodayay oo family friend xitaa naho walaalkii la saaxiiba oo hadi habeen qof wanaagsan oo snapkaygu jiray ayaa igu dhashay walaal goormaad imanaysaa waanu sheegay maalintii wiilkayga 12 September baan imanayaa baan ku ori wuxuu igu dhaala badii soo qaadaysaa walaal afarta cisho ii meermeerinayay aan kula walaashadadayda waan xidhanayay macnaha alaabtii miyaan ka imaadaa inankaas maalin kasta wuxuu igu lahaa walaal bari baa lagu keenayaa inankii baa wajaala ku maqan haddana berberu tagay haddana caynkan waa kaba ii soo qaad bii igu lahaa haye baan ku ori maanta markaan baxayay baan kula walaal kabahayga waan ka imanayaa because the time ba ma jiro alaabna ima soo wadid wuxuu ku dhahay walaal maan ogeyn in reer gadiida oo reer Bristol ayaa iskala kabaha waxaan ku ori laba mid soo gal ninka reer gadiida reer Bristol inaan sheegto magaciisa saddexan ee meesha la geliyay cadayntiisana adiga hayso inaan adiga ku qabso ma reer gadiid baa jira ma reer Bristol jira kaalax dhalay isagoo inaan kaana idin sheegay sawirkiisa idin soo dhigaya message-diisina idin soo sawiraya waxa la Ahmed Abdul Qadir waa Abdul Saad waa reer Cardiff waa adeerkay macallaa buubiya garac dhalayaas hooyadii iyo walaalihii ba shalay Hargeysa ka yimiday yaa weegii hore ay Hargeysa ka yimaadeen aniga hadda cadaawadii qabta Ahmedow ii soo badhadhina adeer nacas dhalay baa taaniga ii soo badhay hooyada iyo walaashaaba u soo dhiiban lahay jaadka ku mirqaanaysay doonayso iimaanka laga qaaday aabaha wase inaad aniga xitaa doonayso igu baqtiyaa nasiib samaha hooyada maxaad ugu dhiiban weyday walaasha maxaad ugu dhiiban weyday hablihiina maxaad ugu dhiiban weyday aabahaaba soo baxaya ambaba yimi maxaad ugu dhiiban weyday taanigi ma shirqoolaynin way kula go'day aniga waxba hay barin nink alaabtaadina CID ga poliiska Hargeysa haysa poliiska CID ga nu dhiibay bitch baa tahay nacsiyow marka bili aadanow cid waxa aaminina alaab waxaan qof bili aadan oo sidii bartii baan ku daadiyay bartii amba cream ii soo dhiibo amba nacnac qori ii soo dhiibo amba beer kabaayo kale ii soo dhiibo shay kama sido Hargeysa alaabtii bili aadan kodan kaga yimiday samad garan anigana ilaahay baa ila jiray I was so innocent daacad baan ahaa samad garanin qofna kama sheegsanin wixii soo dhiibayo laakiin waxa soo dhan idinku sheegay number 1 fadeexada dila doonaysay qaybta dila doonaysay iyo fadeexada la wareegisay aanaa ku kashifaya bari baad qof kale ku samaynaysaa hadan maanta ilaahdo waa in adeerkay waa in Abdul Saad hayo ilaafta ku garaacdo kuma garaacanayo halkaasaan ka sheegay sawirkaaduna halkan ku xiga message-da isoo dirteen xagan aan dhigayaa bili aadanku ha ku ogaado hooyada baad xidhilad walaasha baad xidhilad aniga doonaysaa inaad xidho no way marka walaalayaal iga dambeeyo qof bili aadan ah aamini qof bili aadan shandadaada waxaad adigu hubto oo ku xalaalo shilinkaaga ka soo baxsatay ogtay meeshu ka yimiyo meeshu ku dambaynayo ayaan idin kula talinayaa alaabtiina qaata qofulna waliba ku dhajiya qoful la'aana haba ku bixina balaayada maanta dhacday waydun arkaysaan cid idinka sheekeynaysaa ma jirto
كودة كي حماية كانينا ساد بولها ساد نمبر بولها كاسان كشرية أحمدو كاسمان تهلكو قلات كشيكين الساعة عد كستوانا قانا هرقيسة وذا اللينكس بان كلية هاي CID دا المركبة ولا هادلي شاهدكي يلا مركي ساد كلا يقصو قراعي إيا كبيهي با حفيزك CID دا يالان إيه هرقيسة يقانا الله ديل قرينيا ولا سوهليا لمبركيسي ساد لنا هالكا يديس وصاري waxa kale waxa iga daran ninkaasi snapkiga la hadlayay markuu noqday inuu connection ka isku xidho oo aan alaabtiisi soo qaado walaashi oo ka timiday Hargeysa oo ayaan dhaweyta timiday ayuu lambarka WhatsApp-ka kula hayday lambarkii Hargeysa Soomaaliland aha ayuu igala soo xidhiidhay markaas uu yiri lambarkani waa lambar Soomaaliland oo walaashay sidato ayuu igu yiri markaas aan yaabay war walaal Axmedo Hargeysana ma joogtide lambarkan adiga soo garaacday WhatsApp-ka Soomaaliland maxay markaas siguri walaashay waa telefonkayga Hargeysa la tagtayo maxay haydayaan aan ka isticmaalaya lambarkayga telefonkayga markii soo celisay aniga caruur buu haystay inaan isku birahay oo dhaamahay anu waan qoslaa oo waan sheekeeyo waan xaraabeeya laakiin walaal aqligaygu kaaga uu ka badan yahay dhinacsow uu ka badan yahay diligu dhalay xaraanta lagu dhalay in lagu xidhin la xidha doon saada xidhmi doona samad garanin marka waxaad qoto dheer ka soo shaqaysay baa kula go'ay